alxamdulilah maanta inaan dad leeyahay maanta ayaa ogaaday. safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Danjire Jamac Cabdullaahi Caydiid ayaa hoygeeda ku booqday Foosiye Axmed Sheikh oo ah hooyo Soomaaliyeed kadib markii uu muuqaalkan qabsaday baraha bulshada. Muuqaalkan ayaa laga dhex arkayay iyada oo dhibaato u geysanayo nin dariskeeda ah oo u dhashay dalka Turkiga. ugu horeyntii waxaa goobta ka hadashay hooyo Foosiye Axmed Sheikh, sidoo kalena waxaa goobta joogay oo ka hadlay Cabdiraxiin Maxamed Xuseen oo ah muwaadin dariskeeda ah. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay danjiraha Soomaaliya ee dalka Turkiga Jamac Cabdullaahi Caydiid oo sheegay inaan muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu xadgudbi karin, sidoo kalena uu uga digay inaanay ku xadgudbin walaalahooda Turkida ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahey Soomaaliyeed waan salaamay. maanta waxaa ila fadhiya safiirka ayaa maanta ila joogo iyo walaalahey dhammaan dumarkii wiilashii dhammaantooda way ii soo gurmadeen maasha Allah. nin Turkiga ayaa idilay, markuu idilay gabdhi ilmahaygu ceersaday banaankoo ila tagay ceejiyo igu qabtay. marka saas waay arinta. marka gurigana wuu igu dilay dhabarka haraantii igaga dhuftay. saas ayaa dagaalka ka bilowday. dagaalka markuu ka bilowdan ilmihii oo iga ceertay ayeeyadoo ila joogto guriga ayuu kusoo xiray iyo gabar oo ii dhashay oo qalan oo guriga kusoo xiray. anigana banaanka ayuu ii baxsaday. fiidiyoogana waa aragteena umalay doonaa uu nii soo gaaray. marka walaaley waxaan ka rabaa in wax leega qabto dhammaantiina oo leesoo istaago maxkamad heer maxkamad ana diyaar ayaan u ahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdiraxiin Maxamed Xuseen, waxaan ku noolahay gaar ahaan dalka Turkiga. markaan nin Turkiya ayaa maamada sadarkaysaan waa dilay, jug buu gaarsiiyey, waxaana kula kacay qof fiican ayuu kula kacay, weliba maamo hooyo ah oo caruur haysata. sidoo kale anagana wiil aan walaalahay oo wadanka jooga ayuu si arxandara ah dhib u gaarsiiyey. hooyadan oo arkaysa si arxandara ah oo qof fiican adkeysan kareen dameerkuna aanu ku siinin ayuu ula dhacay, weliba jarna ka tuuray. waxaan la joogay dajaaliyaddeedii iyo weliba safaaradeedii iyo weliba safiirkaygii. waan ugu hambalyeynaa sida wanaagsan wax noola qabteen. waxaan leenahay barakallahu inuu ilaahay kaajada siiyo maamadaana, ilaahay si fiican oo caafimaad qabtana ilaahay waxaan ugu dhabeeyay. ninkaan waxaan rajeynaa insha Allah in safiirka iyo weliba dalka Turkiga ee walaalahayga inay iyaguna sida waajibka sharciga dastuurka loo mariyaan. bismillahir rahmaanir rahiim. caawa oo ah bisha Maarso ay 28 tahay 2021 waxaan soo booqanay maama Foosiye Axmed Sheikh oo sida laga yaabo dad badan inay ku arkeen social media nin Turki ah oo dariskeeda ay soo weeraray iyadii caruurteeda galabta 5 galabnimo. wuxuu kaloo geystay falal kale oo ninkaas xaafadda u geystay dad dariska ah. saad maqlayseen Cabdiraxiin oo isaguna nala fadhiyo iminka, walaalkii ayuu isagana ku xadgudbay. waxaa kaloo nala joogtay inan kale oo Soomaali ah oo la yiraahdo Nimco Jaamac oo iyadana uu handaday oo ceyrsaday, guriga ka ceyrsaday. ninkaas Turkiga ah oo aad ku aragteen clipka galabta la soo geliyay 5 galabnimo, inanka Cabdiraxiin walaalkiina 4 iyo barkii ayuu ku xadgudbay oo dilay. ninkaas daris buu leeyahay labada reerba oo gurigan aan joogno degan yahay, qayb ka degan yahay. inta kaliya kuma ekeen ninku 2019kiina sidaas oo kale ugu xadgudbay xaafadda Foosiye iyo caruurteeda. galabta markaanu aragnay dhibaatada loo geystay Foosiye ayaanu u nimi markiiba waan wareysanay. waxaa ka muuqata in xadgudub lagu sameeyay gabadha Soomaalida iyo caruurteedaba. xadgudub kaliya ma aha in xitaa weli uu jiro khatar ay weli ku jirto, oo maadaama qof daris la ah uu yahay 2019kiina ilaa 3 jeer kusoo xadgudbay, laakiin
berigaa way dacweysay waana la xidhay laakiin maxkamad may geyn markaasaa la sii daayay waxay noo sheegtay hooyadii inay ka maslaxday berigaa oo ka codsatay inay dacwada ka celiso waa kan sanadkan maantana kusoo noqday safaaradda Soomaaliyeed keyskan ama xaaladan iyada ayaa qaadaysa caawa laga bilaabo annaga ayaa maxkamad la tiigsanana wadooyinka ku haboon dacwada loo marayana waa u maranaa raalli kama nihin qof Soomaali ah oo dalkan joogo sharci ku jooga in sinaba loogu xadgudbo mana lagu xadgudbi karo sidoo kale dadka Soomaaliyeed yeena ku xadgudbin dadka walaaladooda ah ee Turkida ah ee martigeliyay wayna soo gaareen dacwooyin sidoo kale Soomaali laga cabanayo iyagana waxaan ka codsanaynaa Soomaaliduna inay yareeyaan ama joojiyaan xadgudubka waliba dhalinyarada ragga u badan ha yareeyeen xadgudubka ay walaalahoodka martigeliyay iyagana u geysanayaan raalli kama nihin Soomaaligu inuu wax dulmiyo ama wax ku xadgudbo in lagu xadgudbana raalli kama nihin oo ficil baan ka qaadanaa marka maamada iyo Cabdiraxiim walaalkii oo hadda naga maqan oo arday ah iyo nimco xadgudubka loo geystay iyo maamada hablaheedu aad arkayseen mid kamid ah inay la sawirnayd intaba waxaan u mari doonaa wadooyinka diblomaasiga ah ee aanu xaq u leenahay maxkamad baanuna ninka la tiigsanana hadii la haydmo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa siday hadeerba u garab istaageen maamada shaarica lagu dhibayay inay sidaas oo kale isu garab taagaan qof kasto oo walaalkood ah oo agtooda lagu dhibaataynayo Soomaalidu gobollo badan bay ka degan tahay dalka Turkiga qofka u dhowbaa marka ugu horeysa laga rabaa inuu u heeliyo oo dhibka ka celiyo heelkuna waxa weeye hadii walaalka wax dhibaato geysanayana gacanta qabo hadii loo geysanayana u heeli oo dulmiga ka hor istaag caawa Fawziya waa tii hadda hadlaysay gurigeedaanu ka soo hadlanaa qof kasta oo Soomaaliya oo xaaladaas oo kale ama mid la mid ah qabsatana sidaas oo kale gurigiisa ugu taganaa ama magaalada degayahay ugu tagi doonaa hadii la haydmo